السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan aad naga daawanaysaan ama casharkan aad nagala socotaan waa Dooya Dheer Forex Trading oo sidii aan horeba ugu ballan qaaday ardayda Telegram channelka waxaan bilaabi doonaa taxane cashareed ah Forex bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa, taasoo sabab ah ku timid arday badan oo iga soo codsatay maadaama ay channelkayga ku jiraan arday bilihii u dambeeyay Forex kusoo biiraysay isla markaana siday ii sheegeen aniguna aan arkay ay kusoo badanayso bulshada dhexdeeda dad sida Forex-kan aynu naqaano maaha Forex kale oo ku odhanaya horta adigu shaqayso lacag taabo waxaan tijaabinaysaa inay qalad yihiin kadib markaad lacag ka soo saarto baro aqoontii iyo cilmigii iyo waxaan waqti geli. taasina marnaba ma dhacayso. Forex-na waa xirfadna haddii aanad aqoon ama aqoon aanad u lahayn ma baran kartid, lacagna kama heli kartid, kamana faa'iidi kartid. adun baa lacag lagaa cunayaa oo meesha kan ku khasaari doona. Forex waa sida gaadhi oo kale, gaadhina in lagu dhahdo horta kaxee oo meeshaa kaga soo noqo oo meeshaa ku tag oo danahaad lahayd ku fusho kadib baro in lagu dhaha waad arkaysaa inay qalad tahay. tanna waa zayn waa la mid, waa inaad markaa qofkaas ka qabataa. casharada kana waxaan u bilaabi doonaa taxanahan dhalinyarta Soomaaliyeed ee u baahan noloshooda iyo hadafkooda inay wax badan ka bedelaan, iyo si aan dhalinyarta indhaha ugu furo inay jiraan dad iyaga fursad u arka. dhalinyarta masaakiinta ee Soomaaliyeed ee u baahan aqoontii iyo cilmigii in la baro ayaa waxaa jira dad kaloo iyaga fursad u arka oo lacag ka sameynaya iyaga dhexdoodii. sidaa darteed taxanahani wuxuu socon doonaa ilaa aanu ka gaadhno istiraatiijiyadda uu qof walba every person lacag ku samayn karo khasaarana iskaga ilaalin karo. taxanaha wuu socon doonaa waxaananu ka bilaabi doonaa maanta oo aynu isla eegi doonaa Forex-kan la sheegaa. Forex-kan la sheegaa Forex baad maqasheen horta waa maxay? horta kelmaddan Forex asalkeeda ma aha kelmad aad dictionary-ga uga soo helayso iyadoo macnaheedii ku hor qoran yahay iyadiina ay qoran tahay, waayo waa laba kelmadood oo la isku keenay. Foreign exchange bay ahayd sarifka lacagaha qalaad, sarifka lacagaha adduunka, sarifka lacagaha. marka foreign exchange foreign-tii baa maxaa laga soo qaatay for keliya, ent baa laga tegay, exchange-na ed iyo ext oo keliya laga soo qaatay kadib waa la isu keenay maxay noqotay Forex ayay noqotay. waa suuq sarifeedka lacageed ee ugu weyn adduunka. maalinkii la sheegaba amba 24 hour marka laga soo gudbadaba waxaa meeshan la dhex mariya lacag gaadhaysa 6 trillion. markaa waayahee suuqan waxaynu garanay sidoo kale inuu faa'iido keliya maaha inaynu dhaha leey haddii aanad baran xirfadiisa aanad noqon qof professional oo full trader oo aad suuqan lacag iska soo geliso ka lacagtiisa ku waayaya waa adiga. markaa maxaa lagaga baahan yahay inaad toonaato ugu horreyn aad cilmigii soo barato muxuu yahay, maxaa khasaaraha iga ilaalinaya, maxaa faa'iido ii sameynaya, xaggeen ku khasaaraya, suuqa goormaan ka joogaya iyo goormaan gelaya. haddii aanad fahansanayn 90% waxaad noqonaysaa qof uu suuqu lacagtiisa cuno. si marka aanad u noqon qof suuqu lacagtiisa cuno ee noqdo adigu qof lacag ka sameeya meeshan waa inaad xirfadda tan fahantaa oo aad barataa. Forex baynu nidhi waxa weeyaan waa suuqa sarifka lacagaha qalaad ee adduunka ugu weyn, waxaana maalinkii la isdhex mariyaa lacag gaadhaysa 7 trillion. 6 trillion iyo 7 trillion u dhaxaysaa maalmaha qaar bay dhaafi kartaa 6 trillion. haye maxaa kusoo xiga haddaba haddii aynu intaa isla garanay walow aan idin tusi doono waxaana nafka ka sheegaya iyadoo practical ah sawir qoraaleedna aan soo dhex dhigi doono Telegram channelka u qoran aan ku qoray wordpad-ka oo sheegaya waxaan nafka ka sheegayo qoran ah buy baa ku xigta. waa maxay buy? haddaba
buy iyo sell baa la yidhi suuqan way ku wada jiraan oo waa qolo buyerisa iyo qolo sellerisa oo inuu qof faa'iido ka sameeyo suuqan in la faa'iido masti waa in la khasaaro. haddii tusaale ahaan iminka la idhaahdo waxaan ku dhahdaayey kubad baa garoon lagu ciyaarayaa, garoonkaa labada kooxoodba markay soo wada galaan inta hore ha lasii saadaaliyo, ha la idhaahdo koox xeblaayaa badinaysa amba ha la idhaahdo koox xeblaayaa badinaysa, kooxdii doontaa badinaysa ha la idhaahdo. laakiin markay ciyaartii dhammaatay labadii kooxoodba miyay wada badinayaan? may, kooxunbaa badinaysa, kooxunbaa badinayso kooxna way hadhaysaa. markaas si aad adigu u noqoto mar kasta ugu jirto mar kasta u raacsanaato kooxda badisa waa inaad xirfadda tan barataa. buy waxa weeyaan waa markuu qiimuhu kor joogo iskuna diyaarinayo inuu hoos imaado. tusaale ahaan sida kandhalkaasoo kale, kandhalku kalarku doonuu yeelan karaa. aniga iminka anigay ii tahay casaan iyo akhtar, adiga waxay ku ahaan kartaa blue iyo casaan, waxay ku ahaan kartaa madow iyo caddaan, wax kalarkay doonto ahaato. laakiin muhiimadda aad u eegaysaa maxay weeyaan? waa kandhalkani kor ma jooga hoosna ma isku diyaarinaya inuu imaado. kandhal kasta oo meel sare jooga doonayana inuu meel hoose yimaado maxaa loo yaqaanaa? buy baa loo yaqaanaa. waa markuu qiimuhu kor joogo buy. sellna waa markuu qiimuhu hoos joogo iskuna diyaarinayo inuu kor aado. tusaale ahaan oo kale buygii waa inagii kandhalkan ku sharaxnay oo kor buu taagan yahay hoosna uu isku diyaarinaya inuu aado. kandhalka sellku haddaba waa qiimuhu markuu hoos joogo rabana doonayana inuu kor aado oo uu kor u kaco. suuqu markasta oo uu hoos joogo kor buu u kacaa, markasta oo uu kor joogana hoos buu imaadaa. oo suuqu maaha ul dheeroo maanta oo dhan kor iskaga soconaysa. markuu in yar kor u socdaba waa inuu nastaayo in yar dib usoo laabtaa si uu usii wato korkiisii. suuqa selka u socda haddaba amba down trade-ka ahin sidaas leeg waa inuu maxay sameeyaa? daadasho, nasasho, daadasho kale sida halkan ka muuqata. sidaa darteed qiimo kasta oo hoos joogo raba inuu kor aadana maxaynu odhanaa? waa down trade iyo up trade baa la kala idhaahdaa. buy iyo sellna waa kandhaladii, waa qiimuhu markuu kor joogo buy, sellna waa qiimuhu markuu hoos joogo. down trade waa saas le qiimuhu markuu hoos joogo rabana inuu kor aado. up trade-na waa qiimuhu markuu hoos joogo damacsan yahay rabo loo diyaarinayo inuu halkee yimaado? hoos inuu imaado. waxaan filayaa haddaba in layla fahmay halkaa buy iyo sell iyo up trade iyo down trade wuxuu yahay. waa maxay haddaba supply? supply marka lagu leeyahay qiimahani hoos meeshii hoose tirada halkan ku qoran meesha hoose ayuu kaga jiraa weeyaan oo meel hoosuu joogaa. supply haddaad maqasho qiimahan hoos buu joogaa weeyaan. supply haddaad maqasho maxaan ku yidhi? qiimahani hoos buu joogaa weeyaan. demand haddaad maqashana qiimahani kor buu joogaa weeyaan. oo labadan erey ee supply-ga iyo demand-ka oo la isku geeyo ayaa hadhow noqon doona maxay? istaraatiijiyadeena dhan ee aynu isticmaalayna iyo ruleska ina hagi doona, khasaarahana inaga ilaalin doona, faa'iidadana inoo samayn doona. supply waa markuu qiimuhu hoos joogo meel hoose uu taagan yahay qiimihii. demand-na waa markuu qiimuhu meel sare joogo. daba maxaa inoo soo hadhay aynu intaa ku darno? ask price iyo bid price. ask price waxaa loo yaqaanaa gacanta dambe iyo gacanta hore. tusaale dhowaan ku siiyo sariflaha caadiga markaa tahay sarifla suuqa bartamaha magaalada Hargeysa amba bartamaha magaalada Muqdisho ka shaqaysanaya markaa tahay, haddii aad tidhaahdo xilliyada ay dadku seexdaan ayaan anigu sarifkayga la soo baxaya oon wax kala sarifaya, cid baa kaa sarifanaysa. si aad faa'iido badan u hesho waa inaad maxay garataa? xilliyadu suuqu fiican yahay. xilliyadu suuqu fiican yahay waa inaad meheradaada furtaa oo dadka lacagaa u kala sariftaa. laakiin haddaad tiraahdo xilliyadii dadku hurdaan, tusaale ahaan 11 habeenimo kale 2 duhurnimo kale haddaad tiraahdo sarifkayga waan furayaa anu meheradayda wax may ka soconayaan? may. waa inaad barataa suuqan haddaba xilliyadu volatility-ga leeyahay, xilliyaduu dhaqaaqo walow lagu yidhi 24 saacadood buu furan yahay haddana 24 saacadood buu sii kala fiicay dhaqaaqiisa iyo siduu u socdaa. ask price iyo bid price-na tusaale ahaan marka aad company bakhaar
meherad weyn oo sarifle markaad lacag badan ka sarifanaysa maxaad ku tiraahdaa sarifka maanta gacanta dambe iyo gacanta hore ii kala sheeg. maxaad ku ogaanaysaa gacanta hore iyo gacanta dambe u kala sheegay ta faa'iidada le si aad adigu ugu tiraa taa igu sarif, gacanta hore igu sarif baad leedahay amba gacanta dambe. wax aski price iyo bili price-na gacanta hore iyo gacanta dambe la yidhaahdo. MT4 kaagu wuu ku tusayaa, trading view-gaaguna wuu ku tusayaa oo aniga waa ta halkaa igu qoran aski price, bili price-na waa ta halkaa igu qoran, faa'iidadiina waa ta intaa u dhaxaysa weeyaan. oo tusaale ahaan haddaan iminka ku yeedhiyo aski price-kaaga aniga suuqan aan ku jira waa gold, aski price-kaagu xilligan wuxuu ii marayaa 1809.292, bili price-kaaguna muxuu ii marayaa 1808.282. oo bili price-kayga ayaa maanta ka qaalisan aski price-kayga, waayo bili price-kayga maxaa ugu dambeeya 292 292, laakiin kan maxaa ugu dambeeya 887 877. soo markasta waa inaad saa u kala fahantaa aski price iyo bili price waxay yihiin. iminka maxaad iga haysataa baa iyo sel waad iga haysataa waxay yihiin. fiidiyowga boos qabo, ha degdegin, waan soo koobay si aanay ardayda gadaalka daawan doonta ugu caajisin. waa waxaadu kooban, boos ku qabo, ku celcesho, fahan baa iyo sel waxay yihiin, fahan dhimaan iyo sabalaay waxay yihiin, fahan aski price iyo bili price waxay yihiin. intaa markaad fahanto maxaynu ku xigsiinaa waa maxay bib. iminka suuqan maxaad aragtaa inuu soo dhaqaaqay ilaa halkeed, ilaa hoos inuu halkaa soo daato halkaa soo aaday ayaa inoo muuqato soo maa. haddaba waayahe waaban arkaa inuu sel usoo daatay in badane maxaan ku xisaabinayaa, wixii aan ku xisaabin lahaa, wixii ii sheegi lahaa inta bib ee uu dhaqaaqay ayaa loo yaqaanaa bib. wixii ii sheegi lahaa intan uu dhaqaaqay lacag ahaan waxay ku tahay ayaa loo yaqaanaa bib. always waa calaamada aniga waxay igu jirtaa haddaan soo tiriyo number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 number 8 number 9 ka anigay taallaa. adiga inaynan isku mid ahayn baa dhici karta, way halkaa ku taalo amba halkaa hoose ku taalo amba halkaaba ku taalo, meeshay doonto ha taalo, muhiimaddu maaha meeshay taalo, waa calaamada. maxaa ku qoran measure baa ku qoran, measure baa ku qoran. sawir ahaana qaabka ay u samaysantahay waa sida calaamada mastarada oo kale, waad ku dhufanaysaa, markaad ku dhufato suuqa halkaad doonaysa inaad ka cabirto halka ugu koreysa, markaad suuq sel cabirayso halka ugu koreysaad ku qabanaysaa ilaa maxaad keenaysaa halka ugu hooseysa. iminka suuqani muxuu ku leeyahay intaa uu daatay waa maxay 284 bib. always waa ta halkaa ku qoran, qiimaha bibku waa ta halkaa ku qoran, waa 248 ayuu yidhi intaasi. markaad doonayso haddaba suuq baaya inaad ku cabirtana halkiisa hoose suuqa, halkii uu suuqu ka bilaabay inuu kor u kaco ayaad ku qabanaysaa, waad ku jiidaysaa ilaa halkee, ilaa halkuu ku dhammaaday ayaad geynaysaa 306 bib, 306 bib, tii hoosena 204 bib. waa calaamad sida mastarada ah. markaad xisaabinayso suuq sale inaad ku xisaabiso waxaad isticmaalaysaa halkii uu kasoo bilowday inuu ka daato. markaad xisaabinayso suuq sale bibka ku xisaabinayso halkii uu bilaabay inuu ka daato ayaad kaga qabanaysaa ilaa daadashada suuqaasi halkii ay ku dhammaatayna waad geynaysaa. markaad xisaabinayso haddaba suuq kor u socda waxaad ka bilaabaysaa always halkii uu suuqaasi ka bilaabay inuu kor u kaco ilaa iyo halkuu ku dhammaaday ayaad geynaysaa. markaasi aan 300 ee bib u ogaado lacag ahaan imise ii tahay aniga, always waxaan ku dhufanayaa 0.01 lodka ugu yar markaan isticmaalay. lot size kaad isticmaalayso, lot size gadaal ayaynu ka tegi doonaa, lot size markaynu dhigano ayaynu insha Allah isla fahmi doonaa sida calculate-kaaga caadiga aad ugu xisaabin doonto iyo calculate badan oo chrome-ka amba browserada la isticmaalayo lagaga baadho calculate forex la yidhaahdo waynu isla gaari doonaa, waynu isla tegi doonaa markaanu dhigano lot size muxuu yahay, muxuu lot size qabtaa aynu gaadhno insha Allah ayaynu dhigan doonaa. intaa kalena maanta casharkeena intaasaan ku joojinayaa. ma rabo inay ardaydu ka caajisto, waxaan rabaa inay ardaydu ka faa'iido, waxaan rabaa inay ardaydu aanay fursad u noqon dadkan iyaga fursad ka doonaya, waxaan rabaa inay ardaydu helaan
waxay u baahnaayeen oo free ah boqolkiiba boqol. Waxaan ka doodayaa dadka fursadda u arka ardayda iyaga laftooda iyaga fursadda kasii raadinaya. Soo casharkan wuu kooban yahay, aad baan usoo koobay, waxaa laga yaabaa 20 daqiiqaba inuuna gaadhin. Boos qabo, ku celceli, warqad iyo qalin soo qaado, isku day inaad fahamto. Haddaad ila socoto bilow ilaa dhammaad, casharada halka aan ku joojin doono ilaa halkan aan ka bilaabay haddaad ila socoto muddo yar baan wadi doonaa. Waxaad ka maarmi doontaa inaad raadiso setup amba signal aad qof dambe u daba fadhiisatood ka sugto intuu signal kusoo diray. Waxaad noqon doontaa full trader, keligiis ku filan, computerkiisa iyo mobilkiisa soo qaata, khasaare iska ilaaliya, faa'iido joogto ahna suuqan ka sameeya ayaad noqon doontaa. Haddii kale aad iska tahay qof maalinkii lasoo diraba Telegram group cusub raadiya, waxaad shabaqa ugu dhici doontaa dadka fursadda adiga kaa raadinaya. Markaa si aad adigu uga badbaado dadka fursadda dhalinyarta ka raadinaya, una noqoto full trader, u noqoto qof aan qofna signal ka sugin oo daba fadhiisan, intan xooga saar, intan boos qabo, ku celceli. Casharka labaad next waxaa inoo ballanay insha Allahu tacaala next lesson iyo berri amba saa dambe kolba ka aan soo gelin doono, walow aan setabyada iyo signalada kula wadaago groupka Telegramka ardayda igu jirta. Anuna aanan ahayn qof awal markiisii hore xiiseeya YouTube-ka inuu wax ka dhigay inuu dad soo fadhiisto, aanan hadalkiis ku wanaagsanin. Laakiin casharada imtixaanay aan bilaabay ay ku yimaadeen codsiyaal badan oo iska daba soo dhacay oo ku yimid dadka Telegram channelkayga ku xidhan oo ixtiraam aad u hayo, oo igu yidhi casharo maadaama anagu 2 bilood oo u dambeeyay soo galaynay forex-ka waxaan u baahanahay casharo bilow ilaa dhammaada. Casharadan cusub ee YouTube-ka ku jiraan waa casharo macallimiinta kale ay dhigayaan, waa casharo advanced ah. Sidaa darteed ayaan ugu bilaabay casharo beginnerkii forex oo aan sidaan ardaba arkaysaan aan ka bilaabay. Waa maxay forex, waa maxay buy iyo sell, waa maxay supply iyo waa maxay demand aan ka bilaabay. Soo intaan next period ku kulmi doono, waxaan rajeynayaa inaad faraxsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.